adduunyadu waa imtixaan waa dhibaato iyo murugo badan tahay dadku isku si uma soo wajahdo waxayna qof walba ku qaabishaa waji gooniya dadka qaar baa farxad iyo reen ku qaata waqtigooda inta badan halka kuwa badan la ay la nool yihiin murugo ciil uur ku taalo iyo caro aan dhammaad lahayn qisadan waa qiso dhab ah oo ka dhacday Soomaaliya gaar ahaan gobolka Baay ee degmadiisa Bardaale waa qiso xanuun badan oo aan uga magac daray ilaa jecelku waa loo dhintaa haddaba dhegaystayaal si fiican u dhuuxa qisadan xanuunka badan iyo sida ay wax u dhaceen aadan yare waxa uu ka mid ahaa ardayda wax ka barata dugsiga Amuurta ee degmada Bardaale waxaana maalimaha ka mid ah uu bartay gabar lagu magacaabo Hawlul oo iyaduna ka mid ahayd gabdhaha wax ka barta dugsigaasi isla markaana dhigata fasalka ama galaaska aadan yare uu dhigto Hawlul iyo aadan yare barashadooda kadib waxa ka dhax abuurmay jecel had dhaaf ah oo midba midka kale u qaado ilaa iyo dhammaan laga ogaado iskuulka macallimiintana ay ka warhelaan xanta jecelka lamaanahan waxaana ay noqdeen kuwa iyagu si gooni isku taxgeliya markastana wada jecel ay waqtigooda iskula qaataan waxaana aashaqa midba midka kale u qaaday uu gaaray in haddii aysan isla joogin ay iska maqlaan telefoonka nin adduunyo joogow maxaa aragti ku laaban aadan yare iyo Hawlul waxay noqdeen laba aad u jecel oo aan kala maarmin waqti kasta way isu imaan jireen waxayna ka sheekaysan jireen mustaqbalkooda waxaana midba midka kale u ballan qaaday in nolosha isaga la wadaagi doono xaafadihii magaalada ayaa bilaabay xan aad u badan oo ay ku sheegayaan in labadan jecel uu ka dhaxeeyo aadan yare ayaa la soo baxay dabeecad ka duwan tii lagu yaqaanay waxaana uu joojiyay la sheekaysiga dhalinta magaalada dheesha kubadda cagta iyo daawashada filimada oo uu caan ku ahaa bulshada magaalada ayaa waxay bilaabeen inay su'aalo iska weydiiyaan waxa ka dhaxeeya labadan arday dadka qaar ka mid ah waxay bilaabeen inay kala fogeeyaan lamaanahan isdoortay allan jecel haasid mawaaye gabdhaha ku nool degmada Bardaale qaar ka mid ah ayaa waxay bilaabeen inay gabadhii Hawlul ahayd ay uga sheekeeyaan sheekooyin khiyaali ah taas oo ay ku doonayaan inay kala fogeeyaan lamaanahan isdoortay hase ahaatee Hawlul ayaa ahayd gabar Ilaahay aqli ku manaystay mana qaadin jirin hadallada ay uga sheekeeyaan gabdhaha saaxiibadeeda ah xataa waxaa dhacday inay ku kala go'aan qaar ka mid ah gabdhaha saaxiibadeeda sheekooyinkaas daraadooda waxaana mar walba isxasuusin jireen inay leeyihiin adow lidku xiriirka wanaagsan ee labadooda u dhaxeeya jecelkooda maalinba maalintii ka dambaysa way sii xoogaysanayay xeer wuxuu gaaray inay iskaga baxaan halkii jecelkooda uu ka abuurmay halkaasi oo ahayd iskuulka Amuurta gabadhii Hawlul ahayd ayaa gashay nolol ka duwan tii hore jecelkii ayaa ka tanbadiyay waxayna la soo baxday dabeecad gooniya oo ay ka mid tahay cunug yari hurdo la'aan taas oo reerkoodii su'aalo badan ay iska weydiiyeen waxaana reerkooda ay ku wareereen xanuunka gabadhooda uu hayo waxa uu yahay reerka Hawlul ayaa hore waxa u maqli jireen in gabadhoodii uu jecel hayo welibana ay jeceshahay wiilka aadan yare ah laakiin waxay u haysteen waxba kama jiraan ah jecelka ay dhisayeen Hawlul iyo aadan waxa qayb weyn ka qaadan jiray wiil ay aad iskugu fiicnaayeen aadan yare oo ku magac dheeraa Butay waxaana maalimaha ka mid ah uu Butay kula taliyay saaxiibkiisa aadan yare inuu doonto gabadha Hawlul taladaasi saaxiibkiisa u soo jeediyay waa uu ku qancay waxa uu soo aaday gacalisadiisa Hawlul si arintaasi ugu sheego waxaana uu sheegay in geedka jecelka oo muddada badan ay waraabinayeen uu koray laamo ubaxlana soo bixiyay socdaalkiisana uu ku qotamo sidii ay ku cuni lahaayeen miraha geedkan uu soo saari doono Hawlul ayaa ku faraxday arintii wayna ka aqbashay waxayna qalanka ku wada duugeen inay soo doontaan isfiday gooyahayga dhagay maya gabo baxlo guri ilaayagle farxad dhonkasho eegmo jecel ayay ku kala tageen aadan yare iyo Hawlul aadan ayaa arintii ku wargeliyay reerkooda laakiin kuma taageerin arintaasi aadan ayaa bilaabay walbahaar iyo oohin fara badan oo bedeshay muuqaalkiisa mana helin aadan cid ka tirta ilmada haddii laga reebo gacalisadiisa oo mar walba ku qancin jirtay in isaga mooyee cid kale nolosha la wadaagi doonin maalimaha ka mid ah aadan ayaa go'aansaday inuu aado xagga iyo Itoobiya halkaas oo ay deganaayeen adeeradiisa Mangeria karone
قبشان ما قنق دقاقا كقروا الصغاير قابت مكوة دي قفمان قيريا كروني قبشان ما قنق دقاقا كقروا الصغاير. arrinta safarkiisa ayaa waxa uu bandhigay saaxiibkiisa Butey waliba ku qasbay inuu ku wargeliyo gabadhii Hawluul ahayd. aadan ayaa safarkiisa guda galay isagoo gacalisadiisa ku wargelin haddii laga reebo u bandhigidda safarkiisa saaxiibkiisa Butey. Hawluul ayaa weyday gacaliyaheeda aadan yare oo ahaa nuurka kaliya ay wax ku aragto iyo midka kaliya ay adduunka ka weheshato. wareer iyo walbahaar ayaa la soo darisay oo hin ayaa hindheheeda la casaadeen. maalin maalimaha ka mid a gabadhii Hawluul ahayd waxa uu yimid Butey oo ahaa ninka inta badan ka soo qayb qaatay xiriirka labadan qof fariintana looga reebay. markii ay maqashay inuu aaday Itoobiya ayaa oohin mooye wax kalaba lagu waayay gabadhii Hawluul ahayd. waxaa bilaabmay cidlo labaduba ay dareemayeen iyo nolol ka duwantii hore. aadan ayaa soo wacay habeenada ka mid ah Hawluul oo markaasi qalbiga ku haysay isaga aadna u murgoysan. lambar ka duwan kii hore ugu soo wici jiray ayuu ku soo wacay. iyaduna ma weydiin su'aal ah hallow yaa weeye, laakiin waxay hadal ku bilowday hallow aadan cadde halkeed ii joogta. markaasuu ku yidhi macaan maxaad ku ogaatay inaan anigu ahay qofka ku soo wacay. kaftan iyo sheeko dheer kadib waxay gabadhii Haawo ahayd ay ku qasabtay aadan inuu soo noqdo uu soo raadsado, taasoo aadan uu ku qancay. aadan ayaa ku soo laabtay degmada Bardaale waxaana uu go'aansaday inuu raadsado gabadhii Hawluul ahayd. waxaana arrintii u bandhigay qaar ka mid ah adeeradiisa maadaama aabihiis halkaasi ku sugneen. waxaana durba adeeradiisa isku raaceen sidii ay ku aadi lahaayeen reerka Hawluul ayna reerkooda uga bandhigi lahaayeen inay doonayaan gabadhaasi. adeeradii ayaa waxay aadeen gurigii Hawluul reerkoodii waxayna u bandhigeen arrintii, balse waxa loo sheegay in gabadhii mar hore la soo doontay lana siiyay qofkii soo doontay. aadan yare adeeradiisii ayaa iska soo laabtay iyagoo tala gacan ku hayn. waxayna ugu imaadeen hotel ka mid ah hoteelada ku yaala degmada Bardaale waxayna u sheegeen in gabadhii la soo doontay oo qofkii soo doontayna la siiyay. aadan ayaa arrintii fajac iyo yaab la noqotay wuxuuna wacay gabadhii Hawluul ahayd waxaana u sheegay arrintii. Hawluul ayaa hadal laga waayay oo hin mooye. joogii ayaa isbedelay. farxaddii ay wada haysteen ayaa waxay u bedeleen murugo. aadan ayaa hadal ka soo bixi waayay. mar labaad ayuu ku noqday adeeradiisa. adeeradiisa ayaa waxay ugu jawaabeen kelmad ah waad waalan tahay quraan saar ayaad u baahan tahay. walwal iyo walbahaar badan kadib Hawluul reerkoodii waxay ogaadeen in wiilka aadan yare ah iyo gabadhan uu xiriir jecel uu ka dhaxeeyo. si arrintaas loo soo gabagabeeyo waxay ku qasbeen in ninkii si degdeg ah u soo orooso. maalin maalimaha ka mid ah ninkii la siiyay Hawluul ayaa si dhaqso leh u soo oroosay gabadhii Hawluul ahayd iyadoo aan ogoleen ayaa agal la geeyay. maalin maalimaha ka mid ah ayaa aadan wuxuu ka warhelay in gabadhii la oroosay. aadan ayaa geeri ku sigtay 10 maalin oo xanuun ah oo uu jiifay gurigii hooyadiisa. wuxuu go'aansaday inuu iskaga soo tago degmada Bardaale. aadan ayaa waxaa hadda ku nool yahay magaalada Garowe caasimada dawladda Puntland. dhagaystow haddii aad xanuun dareentay ogsoonow inaad tahay qof bani aadana rabbi haggiisana u noqo qofka aad jeceshahayna had iyo jeer qadari oo ballantana adkee. barnaamijkan waxaa idin soo diyaariyay anigoo Siraaji Shaysaaq ah oo ku sugan magaalada Garowe caasimada dawladda Puntland. ugu dambeyntii anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan waalidiinta Soomaaliyeed aan ka codsanayaa inay tixgeliyaan jecelka aruurtooda ay sameynayaan, taasoo inta badan dhalinyarada caqabada ay soo wajahdo ay tahay dhanka waalidka. amaana Allah.